faahintii salaadaha fardul caynka ah. Salaadaha fardul caynka ah waa sida shanta salaadood ee aan wada naqaano: salaada fajar oo 2 ragcadood ah, salaada duhur oo 4 ragcadood ah, casarka oo 4 ragcadood ah, maqribka oo 3 ragcadood ah, cishaha oo 4 ragcadood ah. waa 17kaasi ragcadood ayaa ah fardul cayn oo laga doonayo qof kasta oo muslim ah. waxaa wanaagsan su-aashan inaan isweydiino, khaasatan ciyaalka inaan weydiino, maxaan u tukanaa salaad? sideedaba maxaa salaad u tukanaa? su-aasha in la weydiiyo ciyaalka, waalidiinta inay weydiiyaan, insha allahu tacaala jawaabtana inay soo saaraan ciyaalka ayaa muhiim ah. waan ognahay dhammaanteen oo ilaahay baa inagu waajibiyey, naguna adoonsaday inaan sameyno, inaan salaad tukano. laakiin waxaa la rabaa jawaab macquul oo ciyaalka markaasi ay soo tuuri karaan marka la weydiiyo, taasoo ah salaada waxay kamid tahay 5 tiir ee islaamka. waa tiir kamid ah 5 tiir ee islaamka, waana tiirka labaad shahaadada ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah, salaada in la tukado, zakada in la bixiyo, in la soomo iyo xajka. marka salaada waxaan u tukanaa waa mid kamid ah 5 tiir ee islaamka. halkaasi waxaan uga gudubnay tusaalihii fardul caynka, salaadii fardul caynkeed. halkana waxaan ka galayna fardul kifaaya soo sheegnay. salaada janaazada oo kale, salaatul janaaza waa xaq ay muslimiinta isku leeyihiin. qofka muslimka marka uu dhinto in lagu tukado, dadka muslimiintana waa waajibaad saaran, waa fardul kifaaya. haddii la helo cid tukata ama qeyb kamid a muslimiinta ay tukadaan, way ka dhacaysaa muslimiinta intooda kale, wayna ka kaaftoomayaan. su-aashan ayaa muhiim ah, sida loo tukado salaada janaazada, maadaama ay tahay salaad aan in badan soo noqnoqonin oo mar iyo dhif macnaha qofka uu la kulmi karo. inta badanna dadka ayna xaadirinba. waxaa dhici karta dad badan oo muslimiina inaysan aqoonin sida loo tukado salaatul janaaza. marka laga soo tago ciyaalkaba, dadka waaweyn inaysan garanaynin baa laga yaaba, amaba ay iska istaagaan oo salaada marka janaazada la tukanay intay iska daba istaagaan imaamka, su-aashan ay ka xishoodaan, markaasi ayna garanaynin sida loo tukado. marka waa dhibaato inteeda leeg. arrinkaas insha allahu tacaala maanta waad ka gudbi doontaa haddaad videogan la kulanto ama nasiib u yeelato inaad dhegeysato insha allahu tacaala sida loo tukado. marka koowaad horta niyad iyo weyse, macnaha daahirnimada waxaa loo baahan yahay inta loo baahan yahay salaadaha kale. qofka inuu soo daahir qaato oo daahir yahay jirkiisa iyo dharkiisa iyo meesha isaga dhan. sidoo kale inuu weyseysto, niyadina inuu tukanayo salaatul janaaza inuu niyeysto qofka. waxay leedahay 4 takbiir oo takbiir walba la akhrinayo duco gaar ah. 4 takbiirood ayaa la takbiirsanaya. takbiirta hore waxaa la akhrinayaa suurat lfaatixa: bismi illaahi araxmaan araxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, arraxmaan araxiim, maaliki yowm iddiin. sida salaadaba aan markaan tukanayno faatixa u akhrino ayaa la akrinaya takbiirta koowaad. rukuuc ma laha. markaad dhamayso haddana takbiirtii labaad baa imaanayso. takbiirtii labaad waxaad akrinaysaa salliga nabiga calayhi salaatu wassalaam. sidan ayaad u akrinaysaa: allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima wabaarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima inaka xamiidu majiid. waa salliga ibraahimiyada. takbiirtii saddexaad baa timid, rukuuc ma jiro. takbiirtii saddexaad baa haddana timid, allahu akbar waa la yiri. haddana waxaad akrinaysaa ducadan oo aad u duceynayso meydka markaasi: allahuma akfir lahu warxamhu wacaafih wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic madkhalahu waagsilhu bilmaai walthalji walbaradi wanaqihi min alkhataaya kamaa yunqi thawb alabyad min addanas
وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. معناها أحاديث بدن يدعوين بدن بسو أروري لكن تنبان هذا أنيقا سو قاتي. تكبيرة أفراد ركوع مجرو تكبيرة أفراد waxaad u ducaynaysaa naftaada iyo muslimiinta dhammaan ducada aad doonto adiga ayaa dooranaya ducadaasi waa takbiirta afraad ee ugu dambeysay. markaad ducadaasi dhamayso oo naftaada iyo muslimiinta aad u duceyso iyo meydka iyo dhammaan aad u duceyso welina waad taagan tahay hal salaamo noqsi ayaad dhinaca midigtaa u salaamo noqsanaysaa. rukuuc iyo sujuud iyo adim iyo aqimtoona ma laha. asxaabay waxaan filayaa inaad barateen insha allahu tacaala sida loo tukado salaada janaasada. halkaas ayaan ku joojinaynaa insha allahu tacaala. ma dooneyno inuu bato barnaamijka ama sii dheeraado. soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.